maanta ay taariikhda miilaadigu tahay 5 Sebteembar 2025 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 12 bisha Mawlid 1447 kulan sanadeedkii jufada Sinwaaq Cabdalle oo loo yaqaano gacal gadaf ee beesha Cabdalla Goonyar ayaa lagu qabtay xaafadda Jamhuuriyadda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. kulankan oo lagu soo aadiyo bisha Rabiicul Awwal ee sanadka hijriga ayaa ujeedooyinka loo qabtay waxaa ka mid ahay weynaynta dhalashadii Nabi Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee culimada jufada iyo culimo kale oo la soo wacay ayaa ismaatinkan ka soo jeediyay qasaa'id nabi amaana iyo muxaadarooyin dadka lagu barayay abtirsiimadii nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee dhaqankiisii wanaagsanay iyo dhaxalkii diimeed ee uu nooga tegay si ay dadka ugu fududaato inay raacaan wadada toosan ee uu noo jeexay nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. waxaan iskugu nimaanay ixtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan wax yar isaga baraarujino oo culumadayna ay kalimaad nala wadaagaan وأزكى تحيات على خير خلق الله والآل أجمعين. sidoo kale ujeedooyinka loo qabto kulankan waxaa ka mid ah in qaraabadu isku barato iskuna qaraabo xiriiriso. waxaa kulankan ka soo qayb gala oo meelo kala duwan isaga yimaada qaybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata jufada Sinwaaq Cabdalle. qof kasta oo ka soo qayb gala kulan sanadeedkan waxa uu bartaa dhowr qofood oo qaraabo dhowla ah ama ay qaaraan wadaag yihiin. duqowdu waxa ay bartaan dhalinyarada jufada ee soo hana qaaday, dhalinyaraduna waxa ay bartaan odayaasha ku cusub iyo dhalinyarada kale oo isku jiilka yihiin. markii uu soo dhammaado kulanku qaraabadu way isu ducaysaa, gaar ahaan waxaa si wadajir loogu duceeyaa qofka xanuunsan in Ilaahay caafiyo. kuwa arrimaha adag ay haystaan iyo kuwa danaha gaarka ah leh waxaa loogu duceeyaa in Ilaahay kurbadooda faydo arrimahoodana u fududeeyo. dhaqaalaha ku baxa kulankan waxaa iska aruuriya qaybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata jufada gacal gadaf. dhammaadka munaasabadda sanadkan waxaa la yaboohiyaa dhaqaalihii lagu dhigi lahaa kulanka sanadka soo socda. markii la gaaro bisha Rabiicul Awwal ee sanadka hijriga inta badan jufooyinka Abgaal waxa ay dhigtaan kulamo noocaan oo ay u bixiyaan nabi amaan. inkastoo mararka qaarkood ay dhacdo inaan xoog la saarin siirada Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee, laakiin ujeedada lagu soo koobo isbarasho iyo isqaraabo xiriirin, taasoo keentay inay iskhilaafaan magaca munaasabadda loo bixiyey iyo howlaha lagu dhex samaynayo. laakiin midda maanta ay dhigteen jufada gacal gadaf ama Sinwaaq Cabdalle waxay ahayd mid isu dheelitiran oo aad loogu riyaaqay.